all station alpha mig f 14 mig f 16 والدقاقة waxaad arkaysaan ma ahan ciidan dal shisheeye waa ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadkan 2024 heerka uu marayo ciidanka Soomaaliya guud ahaan waxa ku socda dhismo aad u xoogan iyadoo markaas la filayo 10 sano ee soo socota in uu markaas noqdo ciidanka ugu awoodda badan geeska Afrika ciidamada Soomaaliya ayaa dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyay waxa lagu tilmaamayay inay kamid ahaayeen ama ay ahaayeen ciidamada ugu taagta yar geeska Afrika hasa ahaatee waxa la saadaalinayaa in 10 sano oo soo socota isbedel weyn oo ku dhaco xuduudda ciidan ee dalka Soomaaliya hadda waxa arkaysaan waa ciidankii cirka Soomaaliya oo markaasi la qalabeynayo oo diyaaradaha dagaalka loo tababarayo miiga 114 labada garbasnimada dii karno 16 sanadood isku soo boojay all station alpha mig f 14 mig f 16 والدقاقة alaayadeenna qofkii raba dhulkiina rabnaa u soo dhaca dhulka laga leexdo war caalamkoow ma sii kartiin ciidamada cirka Soomaaliya waxa ay markaasi muhiim u yihiin difaaca dalka gaar ahaan hawada waxa muuqata in hadda ay ciidanka cirka Soomaaliya ay ku socdaan wadadii guusha isla markaana ay la wareegi doonaan guud ahaan ammaanka hawada Soomaaliya ciidamada cirka oo kaliya ma ahan ciidamada dib u dhiska weyn laga dareemayo laakiin waxa sidoo kale jira ciidamada badda oo ayaguna dhismo aad u xoogan u ku socdo iyadoo markaasi ay ku jiraan ayaga laftoodu dhismo iyo qalabayn intaba 10 sano soo socota waxa la filayaa in Soomaaliya ay yeelato sidoo kale ciidan bad oo aad u tababaran isla markaana qalabaysan lana wareegi kara guud ahaan amniga badda Soomaaliya dawladda Soomaaliyana waxay u muuqataa mid ka faa'iideysanaysa taageerada saaxiibadeeda caalamiga ah gaar ahaan dawladaha sida gaarka u taageera oo ka mid tahay dawladda Turkiga oo sanadihii ugu dambeeyay kaalin weyn ka geysanaysay dhismaha ciidanka Soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkaasi kooban oo aan uga hadlayay dhismaha iyo isbedelka weyn ee ka muuqanaya ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya